بسم الله الرحمن الرحيم. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. soo dhawaada walaalaha sharafta leh ee ku xiran channelkeena. maanta waxaynu ka hadli doonaa qaab islaameedkii iyo taariikhdii saxaabi jaliil ahaa oo ka mid ahaa saxaabadii nabiga sallallahu alayhi wasallam. adigu waad rumaysay markii ay dadkii gaaloobeen, adigu waad garowsatay markii ay dadkii inkireen, adigu waad oofisay markii ay dadkii ballanta ka baxeen, adigu waad soo jeesatay markii ay dadkii carareen. waxaa sidaa ku yidhi Cumar bin al-Khattab. haddaba sanadkii 9aad ee hijriyada ayaa waxaa diinta islaamka u hoggaansamay boqor ka mid ah boqorada Carbeed. kadib markii uu in fara badan ka biyo diiday iimaanka ayuu jilcay. kadib markuu madax adeyg iyo kajeedsi fara badan la yimid, wuxuu rasuulka sallallahu alayhi wasallam siiyey ogolaansho buuxdo kadib diidmo dabadeed. ninkaas aan tilmaamnay waa Cadiy ibnu Xaatim. Cadiy ibnu Xaatim wuxuu boqortooyada ka dhaxlay aabihiis, reerkiisana isaga ayay boqortooyada u caleema saareen. sidaa darteed maalka ay tolkiisa soo dhacaan wuxuu Cadiy ibnu Xaatim saami ahaan u lahaa 4 meelood meel ka mid ah. markii uu rasuulka sallallahu alayhi wasallam la jahray dacwada hanuunka iyo xaqa, carabtiina ay nabiga u hoggaansatay jilib ayaa wuxuu Cadiy ibnu Xaatim u arkay dacwada rasuulka mid khatar gelinaysa madaxtinimada iyo boqortooyadiisa. sidaa darteed wuxuu Cadiy ibnu Xaatim u qaaday rasuulka cadaawad aad u daran, iyadoo weliba uusan garanayn amaba uusan aqoon u lahayn rasuulka. wuxuu xaaladaas cadaawadeed ku sugnaa muddo gaaraysa 20 sano, jeer uu markii dambe Allah subxaanahu wa tacaala laabtiisa ku waasiciyey nuurka iyo iftiinka hanuunka islaamka. haddaba islaamidda uu soo islaamay Cadiy waxaa ku dhex jirto sheeko aan marnaba la iloobi karin. aan marka hore isaga u dayna qisada si uu inooga waramo bal wixii kala qabsaday. nacaybkii Cadiy uu u qabay rasuulka. Cadiy ibnu Xaatim wuxuu yidhi, ma jirin qof iga necbaa rasuulka kadib markaan maqlay. waxaan ahaa nin ay dadkiisa maamuusaan, sidoo kalena waxaan ahaa nin kirishtaan ah. waxaan ahaa nin tolkiisa ku dhex nool oo xoolaha ay tolkiisa ka soo helaan dagaalada 4 meelood meel ayaan ku lahaa, sidii ay samayn jireenba boqorada Carbeed. hase ahaatee markaan maqlay Nebi Maxamed waan la colaytamay oo waa dhibsaday, laakiin markii arrintiisu bannaanka timid, awooddiisana ay fiday ayna bilaabeen ciidamadiisa iyo ilaaladiisa dagaalka inay ku fidaan bariga iyo galbeedka dalalka Carabta, ayaa waxaan ku idhi wiil adeegahayga ahaa oo geelayga ii raaci jiray, waxaad ii diyaarisaa neefaf geel ah oo galool ah, yacni cayilan oo weliba hayin ah, waxaadna iigu xirtaa meel ii dhow. haddaad maqashid ciidamada ama ilaalada Maxamed oo yimid magaalada durbadiiba ii sheeg. goor subax barqin ah ayaa waxaa xaggayga soo aaday wiilkii shaqaalahayga ahaa, isagoo igu leh, wixii aad damacsanayd inaad samayso haddii ay magaaladaada soo galaan fardihii iyo ciidankii Maxamed hadda sameey. waxaan ku idhi, hooyada gablante maxaa dhacay? wuxuu igu yidhi, waxaan arkay calamadaaf wareegaya guryaha. markaan weydiiyey cidda ay yihiinna waxaa la igu yidhi, waa ciidankii Maxamed. waxaan ku idhi, haddaba waxaad ii soo diyaarisaa geelii horay aan kuu faray.
isla saacadiiba waan kacay, waxaan faray ehelkayga iyo carruurtaydaba in laga guuro dalkii aan weligeen jeclayn. Waxaan bilaabay inaan socod boobo, aniga oo weliba ku socdo gobolka Shaam si aan u haleelo dadka aan isku diinta ahayn oo aan iyaga la dego. Waxaan ka soo tagay gabar aynu walaalo ahayn. Arrinka xaqa waxaa iga dadejisay inaan raadgoobo dhammaan ehelkayga. Markaan dhaafay meelihii khatarta lahayd ayaan waxaan isha mariyay ehelkaygii. Waxaan ogaaday inaan ka soo tagay gabar aynu walaalo ahayn, iyadoo aan uga soo tagnay meeshii la oran jiray Najda. Suurtagal iima ahayn inaan iyada u laabto. Waan sii soconnay ilaa aan ka nimid dhulkii Shaam. Halkiina ayaan iskala degay dadkii aynu isku diinta ahayn. Hase yeeshee walaashay waxaa qabsaday wixii aan uga cabsanayay. Aniga oo jooga Shaam ayaa waxaa isoo gaaray warar sheegaya in fardihii ciidamadii Maxamed ay weerareen guryaheenna, isla mar ahaantaana ay kaxaysteen dad ay ku jirto walaashay, iyadoo loo sii waday magaalada Madiina. Gabadhii aan walaalaha ahayn waxaa lagu daray dadkii la soo qabqabtay, iyagoo la dejiyay meel u dhow iridka masjidka. Waxaa meeshii soo maray Nabiga sallallahu calayhi wasallam. Gabadhii markay aragtay Nabiga ayaa waxay ku tidhi, Rasuulkii Allow, aabbahay wuu dhintay, kii walaalkay ahaana waa la waayay, ee igu galladayso, Ilaahay ha kugu galladaystee. Rasuulka sallallahu calayhi wasallam ayaa ku yidhi, waa kuma walaalka? Waxay tidhi, waa Cadiyu ibnu Xaatim. Rasuulka wuxuu yidhi, ma kii Alle iyo rasuulkiisi ka cararaybaa? Intaa kadib buu isaga tegay rasuulka. Maalinkii dambe ayaa waxaa haddana soo maray rasuulka, waxayna ku tidhi gabadhii hadalkeedii hore oo kale, sidii oo kale ayuuna rasuulka ugu jawaabay. Maalinkii saddexaad ayaa rasuulka soo maray, goor ay gabadhiina Nebiga ka quusatay. Hase yeeshee nin meesha fadhiyay ayaa gabadhii ku yidhi, orodoo u istaag oo la hadal Nebiga. Markaas ayay istaagtay oo mar kale ku tidhi, Rasuulkii Allow, aabbahay waa dhintay, kii walaalkay ahaana waa la waayay, ee igu galladayso, Ilaahay ha kugu galladayste. Rasuulka sallallahu calayhi wasallam ayaa si naxariis ku jirta u yidhi, waan falay, micnaha dalabkaagii waan aqbalay. Gabadhii ayaa rasuulka ku tidhi, haddaba waxaan doonayaa inaan heleelo ehelkayga jooga Shaam. Wuxuu yidhi Nebiga, laakiin socdaalka ha ku degdegin ilaa aad ka hesho cid tolkaaga ah oo aad ku kalsoon tahay si ay kuu gaarsiiyaan Shaam. Sidaa darteed, haddaad heshid cid aad ku kalsoon tahay, ila soo socodsii. Markii uu damcay rasuulka inuu dhaqaaqo, ayaa waxay gabadhii weydiisay ninkii u sheegay in ay rasuulka la hadasho. Waxaana lagu yidhi wuxuu ahaa Cali bin Abi Daalib. Magaaladii Madiina ayay iska deganeed jeer ay maalintii dambe ay magaalada yimaadaan koox socoto ah oo ay ku kalsoon tahay. Kolkaasna waxay u timid rasuulka sallallahu calayhi wasallam oo waxay ku tidhi, Rasuulkii Allow, waxaan helay dad socoto ah oo tolkayga ka mid ah oo aan weliba ku kalsoonahay, kuwaasoo i gaarsiinaya magaaladii ay joogeen ehelkayga. Rasuulka sallallahu calayhi wasallam wuu ka aqbalay codsigeedii isagoo arad bixiyay. Wuxuu kaloo siiyay neef geel ah oo ay ku safarto. Dhinaca kalena wuxuu siiyay nafaqo ku filan inta ay safarka ku jirto. Gabadhiina waxay raacday dadkii socdaalka ahaa. Cadiy wuxuu yidhi, intaa kadib waxaan bilownay in aan raadinno wararka gabadha, iyadoo aan sugayno imaanshaheeda, inagoo weliba aan sugayno inaan rumaysanno wixii naga soo gaaray ixsaankii Maxamed iyo asxaabtiisa ay u galeen walaashay. Wallaahi ayaan ku dhaartay, waxaan dhex fadhiyay ehelkayga markii aan arkay haween saaran gurada awrta ayna xaggeena u soo socoto. Waxaan is idhi, ma ina Xaatim baa? Alla waa iyadii ayaan is idhi.
markaan hubsaday in ay walaashay tahay. Markayna dul istaagtay oo noo timid, waxay igula hormartay oraahdan: ma kii raximgoyska ahaa ee daalimka ahaa miya? Waxaad soo wadatay xaaskaagii iyo carruurtaadii, waxaadna ka soo tagtay walaalahaatii ugu yareed oo iyada iska wado. Waxaan ku idhi, walaalay, waxaan khayr ahayn ha oran. Waxaan bilaabay in aan sasabo oo aan raali geliyo ilaa ay ka raali noqoto, ayna iiga sheekaysay wixii ay la kulantay. Wararkii ay ii sheegtay waa wararkii aan horay u maqlay, waxaana ku idhi, waxay ahayd gabar caqli badan lehna go'aan adag. Maxaad ka leedahay arrinka ninkan? Wuxuu ka wadaa Nabi Maxamed sallallahu calayhi wasallam. Waxay tiri, wallaahi waxaan u arkaa inaad sida ugu dhaqsiyaha badan aad u haleesho. Haddii uu nebi yahay waa kii loo degdegi lahaa fadligiisa, hadduuse boqor yahay agtiisa dulli marnaba kuma noqonaysid. Cadiy wuxuu yidhi, waxaan u diyaargaroobay safar anigoo u kici timay magaalada Madiina. Waxaan u soo galay rasuulka sallallahu calayhi wasallam. waxaana horay aan u maqlay inuu yidhi, waxaan rajaynayaa inuu Allah gacantayda ku dhigo gacanta Cadiy. Waan salaamay isagoo ku jira masjidka. Wuxuu yidhi, waa kuma? Waxaan idhi, waa Cadiy ibnu Xaatim. Wuu ii soo istaagay, kadibna wuu i qabtay gacanta isagoo ii kaxeeyay gurigiisa. Wallaahi ayaan ku dhaartay wuu i sii waday jeer uu wadada kula kulmay haweeney tabar daran oo waliba waayeel ah, waxayna la socotay wiil yar. Haweentii waxay istaajisay Nabiga sallallahu calayhi wasallam, waxayna bilowday inay kala hadasho danaheeda. Wuu la istaagnaa ilaa uu dhammeeyo danaheedii. Naftayda ayaan waxaan ku idhi, wallaahi kani boqor ma aha. Gacanta ayuu haddana i qabtay ilaa aan ka imid gurigiisa. Wuxuu soo qaaday barkin ka samaysan harag, isagoo xaggayga ku soo tuuray, iguna leh ku fadhiiso. Intaan ka xishooday baa waxaan ku idhi, maya, adiga ayaa ku fadhiisanaya. Wuxuu igu yidhi, maya, adiga ayaa ku fadhiisanaya. Markaas kadib ayaa waxaan u hoggaansamay amarkii rasuulka sallallahu calayhi wasallam oo waan ku fadhiistay halka uu isaga fadhiistay dhulka. Sababtoo ah guriga ma lahayn waxaan ka ahayn barkintaas. Naftayda ayaan mar kale ku idhi, arrintani iyo boqornimo kala dheer. Intaa dabadeed xaggayga ayuu milicsaday, wuxuuna igu yidhi, Cadiyow, miyaadan ahayn nin ruquusi ah oo diinta ka dhigta diinta Kirishtaanka ah iyo diinta Saabi'iyada? Waxaan idhi, haa, oo waa runtaa. Wuxuu yidhi, miyaadan ahayn nin tolkaaga ka qaata 4 meelood meel maalka ay dagaalka ka soo helaan, taas oyna diintaada kuu bannayn? Waxaan idhi, haa, iyadoo aan garowsaday inuu yahay nebi xagga Rabbi laga soo diray ayaan garowsaday. Wuxuu haddana igu yidhi Nabiga, waxaa laga yaabaa Cadiyow inay kaa reebayso inaad diinta soo gasho waxa aad aragto ee fuqarada muslimiinta ah. Wallaahi ayaan ku dhaartay waxay u dhowdahay in maalka uu ka daadaato muslimiinta dhexdooda jeer laga waayo cid qaadata. Ma waxaa laga yaabaa Cadiyow inay kaa reebayso inaad diinta Islaamka soo gasho waxa aad aragto oo ah tirayarida muslimiinta iyo cadowgooda oo badan. Wallaahi waxay u dhowdahay inaad maqasho haweeney ka safraysa magaalada Alqaadisiya iyadoo saaran ratigeeda jeer ay soo booqato gurigan oo ah Kacbada Maka, iyadoo aynan cidna ka cabsanaynin aan ka ahayn Allah. Waxaa laga yaabaa inay kaa reebayso inaad diinta soo gasho Islaamka aragtida aad aragto boqortooyada iyo awoodda oo gacanta ugu jiraan gaalada. Ilaah ayaan ku dhaartay waxay u dhowdahay inaad maqasho daarihii cadcadaa ee dhulka Baabiil, waa magaalo ku taalla Ciraaq, oo ay furtaan muslimiinta kaydihii boqorkii Kisra binu Hurmuzna ay iyaga la wareegaan.
waxaan idhi ma boqorkii Kisra bin Hurmus? Wuxuu yidhi nebiga haa, kaydihii boqorkii Kisra bin Hurmus. Cadiy ayaa yidhi markay arrintu halkaa marayso ayaa waxaa qiray shahaadadii xaqa waana islaamay. Cadiy bin Xaatim Ilaahay ha ka raali noqdee wuxuu cumriyey oo wuxuu noqday waayeel, wuxuuna oran jiray waxaan xaqiijiyay 2 ka mid ah waxyaalihii uu Nabiga sallallahu calayhi wasallam sii sheegay, waxaase ii hartay hal qayb, wallaahi ayaan ku dhaartay taasna waa tii timaado. Cadiy wuxuu yidhi waxaan arkay gabdhihii oo ka safraya magaalada Al-Qaadisiya iyagoo saaran ratigooda, weliba aynan cabsanayn ilaa ay ka yimaadaan magaalada Maka. Waa arrintii koobaad. Dhinaca kale, anigaaba ka mid ahaa fardooleydii ugu horreysay ee weerartay qaadatayna keedihii boqorkii Kisra. Waxaan ku dhaaranayaa inuu yabooha saddexaadna imaanayo. Cadiy wuxuu yidhi wuxuu Ilaah doonay inuu xaqiijiyo oraahdii nabigiisa naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee. Waxayna dhacday yaboohii saddexaad xilligii khilaafadii zaahidka ahaa ee Cumar bin Cabdilcasiis. Markii maalkii meel la kala geeyay la waayay, jeer laga arko nin ku dhawaaqaya yaa ii imaanaya oo iga qaadanaya maalkii zakada oo cidna ay u imaanin. Xilligan waa xilligii dowladda Cumar bin Cabdilcasiis, waxaana la yiraahdaa inuu dowladdiisa soo saaray qaraaro fara badan oo ku kafaalo qaadaya ummadda, gaar ahaan fuqarada iyo dadka aan waxna haysan. Sida qofka doonaya inuu guursado isla markaana aan haysan hanti uu ku guursado, inuu maalkaas ka heli karo sanduuqa dowladda. Sidoo kalena cidii lagu leeyahay deen isla markaana aan awoodin inay iska bixiso, in sanduuqa dowladda uu ka heli karo. Haddaba waxaa isweydiin leh maxaa muslimiinta maanta ka dhigay mujtamaca ugu liita dunida marka laga fiiriyo xagga dhaqaalaha, amniga, difaaca, siyaasadda iyo wax la mid ah. Taasi waa iska caddahay oo waa markii ay ka jeesteen ku dhaqankii diintooda Islaamka kuna dhisan sinaanta iyo cadaaladda. Dhinaca kalena ahna diin taabanayso guud ahaan qaybaha nolosha. Nabi Muhammad sallallahu calayhi wasallam wuu ka run sheegay hadaladii uu yidhi. Cadiy bin Xaatim wuxuu meel mariyay dhaartiisii. Ilaah waxaan ka baryaynaa inuu u naxariisto dhammaan asxaabta rasuulka oo ka mid yahay Cadiy bin Xaatim. Fiidiyowgeeni halka ayuu noogu egyahay. Waa mahadsantihiin walaalaha sharafta badan inoo share gareeya.